إلهي تبارك وتعالى سنوينكي سوحا كمذا إيا عاداتك وكون كان أدتشيي إن مروا الباء حقي باطل كو أي سهيان أي لقتمان أي دقالمان إلهي تبارك وتعالى كون كان أكبا بإنيو وقيامة لقاريو حق إيا إهل كيسية دد كيسا باطل كإيا دد كيسو وإسكهر تشيدي دوران إلهي باساء حكومي وحنا ما نيرماه تاريخ ذا مركات صوب اللوذنا إلى آدم لأبوري وسجل تاريخ ذا ديبو أخرده إلى آدم آبوركي آدم لقب الله إلى ما أنت أن سوق قارنه سيدا سوق دقال كاسي وشري وانا شري دونا دقالكم مر بوجه بولي مروا عسكري يعيدمو يدقال دولكا وهو ليزو استعماله مرنا ودقال ثقافو مسكحدا ليسغا دوليو dhaqamada la iska weerarayo akhlaaqda la iska burburinayo dadnimada bulshadu waa dhaqankeedii akhlaaqdeeda la weerarayo waa waxa yiraahdaan siraacu alhadarat ama siraacu thaqafat looltanka iyo dagaalka ka dhaxeeya dhaqamada diimaha iyo waxyaalaha aadamuhu haysto كفره وملة واحدة حقنا وقونديسا مددر أيا وحا السعودي الأولها اللوغو مقعدري الأوليه معتبكا والرجال بيتكو أي دونيين إن دولالك مسلمين تكو قبصدان بغلال سنو السعودي مركي يقول كقاري وايين waxay go'aan ku gaadheen gaar ahaan nin hogaamiyahooda ahaayoo la dhihi jiray Luwaysu Taasic marka gacanta muslimiinta uu galay oo la qafaasho la qabsaday oo muddo xabsiga ku jiray kadibna la sii daayay ayuu wuxuu la galbaday fikrad la yiraahdo muslimiintu intay diintooda haystaan lagama adkaan karo maxal haddaan rabno muslimiinta inaan ka adkaano waa inaan ka galno xagga diintooda iyo akhlaaqdooda halka markaynu kaga adkaano way fududahay marka dhulkooda in la qabsado iyaga in la qabsado khayraadkooda la boobo sidii la doono laga yeelo laakiin darbiga u baahan inaan jabino waa diinta ay ku dhagan yihiin waana sirta awoodooda waay saddexdii qarniye u dambeysay regalbeedka iyo gaalada kaleba waxay ku dadaalayeen muslimiinta in diinta laga burburiyo akhlaaqda laga burburiyo wuxuu xoogaystay dagaalkaasi markii ay regalbeedka iyo reer Yurub ay qabsadeen dhulalka muslimiinta qarnigii 19aad aakhirkiisa iyo qarnigii 20aad qaybihiisii hore waxaa garab socday markay military ahaan iyo ciidan ahaan dhulka muslimiinta u qabsadeen waxaa garab socday inay faafiyaan akhlaaqda ayagu ay wataan iyo afkaartooda tii muslimiintana la burburiyo la baabi'iyo dadkii loo isticmaalay waxaa ka mid ahaa barnaamijka dumarka ka mid ah dumar la soo tababaray la soo leyliyay dhaqaale iyo hawl lagu taageeray عالم الإسلام اللي سوق لي ديجان ككرشي ضلال ككرشي لقده يقانه رقمه يقانه أيال صو استعمالي هي أداة لو سمي جمعيات برنامج حلو أبو ريلي ده هذا حرين تدمركا دقدقاقية الله مقع بحي دقدقاقية ذا رادين تحقوق ذا دمركا مصر بيك بلابتي مغرب تونس عالم العربي بيسوق الشيء ولا قرب استاغي قال دي بعد قاله هذه اود دي كو قرب استاغتي
saamaynta aad aragteen iyo waxaan soo baxay iyo qaawanaantan iyo xijaabka la tuuray iyo akhlaaq xumadan waxani waxa weeye intaasoo sanaa laga shaqaynayay barnaamijkan isna saas uu ku yimid innaga waxaan ahayn mujtamacaad caalamka ka yara baxsan saameyntuna waa inugu yarayd hadda oo caalamka aan ku baahnay baa waxaa bilaabatay barnaamijkii caalamul islaami horan looga takhallusay dadkan qur-aanka wada xifdisan ee diinta yaqaana masaajidda camiraya gabdhahan xijaaban akhlaaqdan dadka ka muuqata bulshadan muxaafidka ee ilaashan ma sidan aan ku fiirsan karnaa maya tilaabadii iyo hawshii hadda ka hor lagu guulaystay waa in laga hirgeliyo yaa loo isticmaalayaa dumar waa soomaali waa ina hebel waa caasho waa khadiija waa hebla iyagaa loo isticmaalayaa farsamaduna waa tii caalamul islaami ka hirgashay waaye maxaa yeelay waxay og yihiin saamaynta dumarka marka la isticmaalayo oo ujeeddooyinka loo isticmaalayo shaydaanna wuu isticmaalaa oo ka jinka ah shayaadiinta aadamuhuna inay isticmaalaan baa u fudud maxaa yeelay dumarka abuurka ilaahay uu abuuray caadifadaa ku xoog badan inta badanna kama warhayaan wacyina uma laha diinta islaamka wacyi uma laha intooda badan saas daraaddeed way fududdahay inta la qaato in la isticmaalo oo laga dhigo gantaalihii lagu burburin lahaa akhlaaqda iyo dhaqanka muslimiinta way fududdahay kuwii horena horaa loo isticmaalay kuwana haddaa la isticmaalaya halista ay leedahay dumarka iyo fitnada ay ummadda ku keeni karaanna waa ka ilaahay ka cabiray tabaaraka wa tacaala حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ويمعانتهي وين عقارنتهي ووح نفتك الشهي الله تبارك وتعالى ويدين ديبيا وكوا كتغيو كهر إذن كهر ريبو إذن كبدليا خليف بو إذن كدغيا kadibna wuxuu fiirinayaa bal waxaad samaysaan adduunyada iska jira dumarkana iska jira buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam adduunyada iska jira waa shahawaadkeeda waa dhaldhalaalkeeda waa kuraasteeda waa xoolaheeda iyo inay idin fitnaynin shahawaadka marka laga hadlayo waxa ugu horeeya shahawaadka dumarka iyo ragga zuyina linnaasi حب الشهوات من النساء والبنين من النساء بالغ بالله لماذا هل كان مركا النبي قوني ugu sheegay wattaqu النساء dumarka iska jira halistooda badan saas daradeed ba nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fitnadii ugu horeysay reer bani Israa'iil ku dhacday iyo meesha aafadu ka bilowday dumar ba sabab ah dumar bay ahaayeen nabi maxamed baa yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas daraaddeed isjira oo iska ilaaliya fitnada dumarka buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tii rasuulku ka digay waxa quraanka kariimka Allah inoogu sheegay dad safkeena ku jira oo inala tukanaya oo laga yaabo inay umraysanayaan oo xajinayaan bal marmarka qaar kood ba ay jihaadka ka qayb galayaan الله تبارك وتعالى ومنافقين اللي يدهدو إنه قد احتشرا لو قدينا كو هالليه اسكو بلد آنا أبتير كينا له ميدب كينا له الله وحو شيء تبارك وتعالى ضد نوع عاسى إني دينتي أخلاق الله دقالهم يدونان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم وآيات قرآن واحد ضد إذن كل احتشرا ayaa xumaanta ka shaqayn doona amri doona wanaagana la dagaalami doona waqtigii nabiga la dagaalamay gadaal damana waa la dagaalamay dagaalkooduna waa jiri doona waana kuwa ugu halisan cadow jira kuwa ugu halisan waa
إلهي صمدهم في سورة المنافقون هم العدو فاحذرهم عدو هدو جروا إياك إسكتشر بألله تبارك وتعالى عدو هدو جروا كوا الصفقة كوتشري كوجود حشرة إذا إسكجرانين كوا ساعدوا الرسمي حقيقي النبي محمد وتحدر قادم بألله تبارك وتعالى وحنبي أن كسر صلوات ربي والسلام عليه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ومسند أحمد نبي يقول صلوات ربي والسلام عليه لبقلوا ولي ما يسن إيماني طبعا وإيمان دونا واحد أنا ولي ما أركن بنبي صلى الله عليه وسلم ويس إيمان دونا واحد قلوا وقليو وحيوتان الله يشابوجيو لقد الصين توضو كلا أو ضدك يكون قرعان وقليها الدولة ده هي مدحض الظالمين تأشقية ضدك أقرعان لبض قلبه وأهل النار بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا اللبادي وحوي ودمر مريقبا أو قاقاون أو الليحذي ضدكنا الليحينيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم شنذا قلي مايان عرفت إذا هيلي مايان عرفت إذا وحى لقيه لا مركز أجرت ميل الله صعده أنت الله صعده حتى عرفت إذا هيلي مايان شناه يقولان إسكاب الداي وفي حديث كمر حديث كان يقول كم دي هاي أحاديث تكتصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو لي بدأنه حقها رسولنا أها صلوات ربي والسلام عليه لأنه وحوي كن أفر بقول أو الصراب كسي والرمية ما ندعي نحل قاس هذا إنه أركينا وقت الدنبي صوبحين دمر درقبة هدنا قاون محل قوضا مقع در وحلة بي قبان لكن حقيقة در مقبان وحي علماء كوفة سيرين در كي قبان بان أسترينين أما هو قابن يهو شركي قاربا قاون أما واحديني يو شركو كودك هيا وصفينيا أما وخفيف وشركا لغا أركيا وحمرا مقعيدا ويقبتا لكن ما أسترنا كاسيات عاريات واحد حسوسا كرتان مالمان السوشيال ميديا وحي دحيا لي هبر وزيرة دا ودولة الصومالية كتيرسن ومحفل ميل دان لما رأيه بابليك maradii gogosha lagu seexanay sarwaalkii raggu ay gogosha ku seexanayeen hatta ma sarwaalkii banaanka loogu baxay waa sarwaalkii sariirta ayay la taagan tahay oo isku sawiraysaa markaas ay social media ha soo dhigaysaa hatta inda adayga iyo xishood darrida iyo sirrig la'aantu waxay gaadhay heerkaasay gaadhay hatta dumar caadi ma وإسلام لحدن شركة وين محاكو هري ودأنا السوق وين ومحاد هذين يسا رسالة أي دريسية فرينتا أي دريسة هورتا سمتقى نادق وفرين رسالة يحنبار سنتها معها بلاش معها رسالة يحنبار سنتها برنامج جواي وحيركو هرنا mid kale waa tii iyaduna lahayd xeerkii jinsiga iyo kufsiga wadaadaan loo diiday oo ka hor yimid si ay toosh ugu ifiso wadaadaa waxaan diidan yaa diiday ummadii muslimkaa diiday baarlamaankii baa diiday wadaad cid aan ahayn baa diiday wax urayaad meesha keenteen oo laga yaqiiqsado oo qashin ah raggu hays guursado dumarkuna hays guursadeen ninkuna xaaskiisa hadduu u tago waa zino hadduu kufsi baa la yidhaahdaa hadday labadan taata caadi isu ogolaadaanna zina maaha xor weeye way isfuulfuuli karaan waxaasaa intay la shir yimaadeen oo ummaddu maya tidhi bay doonaysaa inay tidhaahdo dhowr wadaad baa noo diiday dhowr wadaad oo kuwa waa madaxdii maxay shareecadu u tidhi war guryihiinna jooga waxa iyo wax ka daran baa laga baqay
waxay wax ka daran baa laga baqay عقلي iyo cilmi iyo garasho iyo xishood iyo siriig iyo ma jirto أمام البلاء والله ديو فيرس بل واحد isweydiisaa dumarkii Soomaalida ahaa markay konton dhaafaan oo 60 gaadhaan oo ay siyaasad haweystaan oo baabka galaan bal waxaad isweydiisaa maxaa diinta ku diray maxaa diinta shaqo uga dhigay maxaa waxayna garanaynin ay u galayaan maxay qiyamka iyo akhlaaqda ummadda u weerarayaan maxay gaala iyo qashinkeeda u soo urursanayaan bal isweydii imisa dumara laga qabanaya diinta ilaahay imisa laga qabanaya na ka joog na xageed u socotaa na maxaad ka hadlaysaa laga celinaya xagee laga celinaya waxaad garan kartaa barnaamijku waa barnaamij ayaga ka sareeya ayaga ka fog waay hal dawlad oo dawladaha reer galbeedka kamid ah waxay u diyaarisay barnaamijkaasi inuu Soomaaliya ka hirgalo oo qawaaniin laga dhigo intaasoo milyan oo dollar bay u diyaarisay qaar kamidana baxay qaar kamidana ay u diyaariyeen hal dawlad oo Yurub kamid ah war maxaa idin ka galay maxaa ummadan ka rabtaa habar wareertay waa la arki jiray ruux dhalinyaro wareerana waa la arki jiray oday wareerana waa la arki jiray laakiin aniga midaan la yaabanaha waxay tahay dadka nooca u wareersanay qaabka u yaala cidda xil u dhiibatay saddex mid waay in la qasbay oo la yiri dadka noocaas oo kala xil noogu dhiib oo macnaheedu noqonayo ummadan aad hor joogtay sideedaba taladeeda ummada kala leh mooyee aduu khiyaar ma lihid maye dadka noocan oo kala inaad ummadda hor keento waxoogaa maslaxa abaad dhaafsatay oo taana macnaheedu waxa weeye ummadda mustaqbalkeedii iyo diinteedii iyo akhlaaqdeedii agtaada suuqu yaalla oo waa iib yaa iga gadanaya tasaddexaadi waxa weeye dadka noocan oo kaliya barnaamijtay wataan baabad waafaqsan tahay oo waaba kula quman tahay saddex khiyaar oo midba midka kale ka xun yahay waay warmadii aaway dadkii kale maxaa dadkan hor keenay ummadda maxaa loogu horwadaa maxaa loogu soo celcelinayaa bal isweydii barnaamij cajiib ah nabigu wuxuu yiri salaatu rabbi wa salaamu alayhi dumarka nooca u yaalay markuu ka hadlay wuxuu yiri maa'ilaat waa kuwa xaq iyo sawaabki akhlaaqdi iyo dhaqanka wanaagsan ka leexday inay ka leexdeen kumayna gaabsanina mumilaat kuwa kale iyaga ka soo hadhayna way leexinayaan imisay gabadha yara lu goynayaan imisay akhlaaq xuma faafinayaan imisay xumaan dadka barayaan maa'ilaat mumilaat ولا ليال إلهي شرعي سي أحكامتي سين لغو رقمه أو دستور لغا دكتو محكمتها لا دكتو ومد لغو كلا سارو واهرا ميل لا اسكا دغاي وحوغاغي يراي امده u soo harayo akhlaaqdeeda iyo cibaadaadkeeda inay ilaashata ahayd intii baa loo soo dhigtay wixii hore looga soo gudbay inta iyada ah difaaceeda yaa iskale bal su'aasha aad isu weydii markii habar la soo dirsaday ama oday la soo dirsaday ama dhalinyaro la soo dirsaday dalkaagi iyo deegaankaagi iyagoo jooga akhlaaqdaada ay ku falaadayaan oo diintaada ku ciyaarayaan oo akhlaaqdaada ku tumanayaan oo inaan qarsanaynin dalkaada iska leh diintana ada iska leh fikirkuna waa qariib ma aha kaagi laakiin waxa ka maqnaaday inaad adigu mas'uuliyadda leedahay diintan mas'uuliyaddeeda ummadoo dhan baa iska leh madaxda iska leh shacabka iska leh raciyada iska leh culimada iska leh dumarka iska leh dhalinyarada iska leh aqoonyahanka iska leh suugaanleyda iska leh warbaahinleyda iska leh diintani waa diinteeni waa diintii xaq ahayd cidda ku ciyaaraysa waa in la qabto waxaan hubaa dumarkaasi fakfakleynaya diinta laga kari laaya
أخلاق أمد كسو دولة قالوا استعماليسو وحن هبا ماشا أي دين تإلهي وحكشي جيان هذا هل ريرو ريرها الصومالية كم إذا وحكشي جلهاين سيدا انت الله قبتال السيب لها يا قوم الرهطي أعز عليكم من الله الرهطي أعز عليكم من الله ما قبيلك يا ريرك يا إلهي أكتسي دينتي سيدين كلوين ريرك لما تابن كرو لكن دينتي إلهي والله فلادي كرا هورتي صور ارتوى يكو فلادي midkii diin xumo ku dhacda uu ku falaaday sidii doona looga hadli barina waa la tamashliina umada la dhex socdaayo waa la soo dhaweeyno sacab baa loo garaacayaa sharar baa loo qabanayaa waxa wasiiradii waa madaxdii baarlamaanka warsoo diintaada halista gelisay ma weerarka kugu ah maxaa filaysan marka abaaraha maxay u dhacayaan aafaadku maxay u dhacayaan dhiigan daadanaya ee dhammaan la maalin ba magac iyo waji cusub qaadanaya mar magac diineed qaadanaya mar magac qabiil qaadanaya marba magac maslaxa qaadanaya dhiigan daadanaya dhammaan la maxaa keenaya aafaadkan Sacuudiya xasilooni aanti iyo dawlad xumada maxaa keenaya madax xumada maxaa keenaya maxaa aafaadkan ummadda haysta keenaya waxa keenaya Ilaahi tabaaraka wa taala macsiyada laga galayo oo gaadhay heer si xishood la'aan diinta Ilaahay loo weero markaas waxaan leenahay abaaraay dadkii baaba'ay wardaba gaadhay war soo gurmaday adiga way sababto habartan iyo cidi keensaday way akhlaaq xumada way dhaqan xumada way diinta la weerarayo way intii yarayda umadu haysato idin ka baxsan la way maxaad Ilaahay ka sugaysaan marka tabaaraka wa taala kuwii fasaadinayo dhibka oo dhan sababta u ahaa ayaa wax weeyaan haddana intay noo qayliyaan baa waxay leeyihiin muxuu ahaay war dumarow Ilaahay ka xishooda dumarow dhan meehee kuwa khadka ka baxay oo soo noqdo Ilaahay u soo laabta haddaydan diin waxba u qabanaynin islaamnimaad sheeganaysaan diintu ha idinka nabad gasho meeshii Ilaahay idinku talagalay waad ka soo gudubteen laakiin ha sii gudbin oo waqaaxada iyo edab darrada joojiya edab darrada joojiya af xumada joojiya dhaqan xumada joojiya cid walba oo ka baxda khadka Ilaahay ugu talagalay xaqiiqadiisu waa sida Soomaalida waxay yiraahdaan islaam baa waxay lahayd wiil aan hadlin Ilaahay bay bariday Ilaahu iiga hadli Ilaahu marun iiga hadli wiilkii yaraa hadalkii ugu horeeyay hadlay Ilaahay baa ka hadlay wuxuu bilaabay inuu yiraahdo hooyo damac baa iga ka jira islaantii waxay tiri Ilaahay uga aamusi Ilaahay uga aamusi war dumarkii la celcelinahay jooga la laha war ka daaya la laha hadda goor markaan Muqdisho tagay dumarka waxyaalahan u ololeeyaa culimada ballansaday Soomaaliyeed shirkaasaan ka qayb galay ololaha ay dumarkaasi ugu jiraan waa tobaneeye iyo tiro ka badan dumarka markaan fiiriyay waxay ka hadlayaan iska daa laakiin la fahaantooda markaan fiiriyay hal islaan oo konton ka yar ma jirto hal mid waa 60 iyo wixii ka sareeyo waa xilligay Soomaalidu dhigi jireen hadda salaada ila taaga kii xumaanta ku foofay oo fogaaday xataa xilligu soo noqon jiray oo Ilaahay u noqon jiray way xilliga ay foofeen oo xumaanta iyo munkarka iyo diin xumada u foofeen dadka noocaas oo kale taa intii Ilaahay hanuun ugu talagalayna Ilaahay ha soo hanuuniyo intuusan Ilaahay hanuun ugu talagelinna Ilaahay ha soo qabto oo Ilaahay ummadda ha ka qabto oo caafimaadka Allah ka galo oo maskaxda Allah ka galo oo meel kasto ay u dhiban karaan Allah ka galo oo Ilaahay ummadda ha dhaafo intii Ilaahay uu ugu talagalay hanuunna Ilaahay ha soo hanuuniyo inta kale ummadda ibtilaynaysa diinteeda laga kari laayahayna Ilaahay aafad degdeg ah ku keeno ummadana ha ka qabto